السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خياري كلنتي wanaagsan meel kasta aad nagala socotaan ku soo dhawaada waraysi gaar ah oo aanu la yeelanayno Dr. Maxamed Faarax oo ah gudoomiyaha Akademiyadda Nabadda iyo Horumarinta Somaliland toddobaadkan gudihiisa sidaynu ogsoonahay Soomaaliya waxa la bedelay nidaamkeeda siyaasadeed ama dastuurkii hore ee ku meel gaarka ahaa ayaa la laalay systemka doorasho ee dalkana wax ka bedelaya laga sameeyay waxaana la qorsheynayaa mustaqbalka dhow systemka dalka sida loo dooran jiray ama hay'adaha dalku qaabka ay ahaayeen in la bedelo tusaale ahaan haddii Soomaaliya markii hore ay lahayd madaxweyne ra'iisul wasaare iyo baarlamaanka oo laba aqal ah imaka waxa laga dhigayaa madaxweyne ku xigeen iyadoo laga saarayo baarlamaankana meesha Dr. Maxamed Faarax oo khabiir inta badan ka faalooda siyaasadda geeska ayaanu su'aalo la xiriira arrintaasi saameynta ay ku yeelan doonto geeska iyo maadaama Somaliland jaar la tahay lafteedana maxaa xiriira ama arrinta maxaa saameynaya ee ku yeelan karta ayaanu wax ka weydiin doonaa Dr. Maxamed Faarax soo dhawow ugu horeyn systemka Soomaaliya sidoo ogsoonahay waxa la qorsheeyay in la bedelo oo sidii warmurtiyeedkii ugu dambeeyay ee madasha wada tashiga oo ka kooban dowladda federaalka Soomaaliya ra'iisul wasaaraha madaxweynaha lixda maamul goboleed gobolka Banaadir iyo baarlamaanku ay qorsheeyeen in nidaamkii hore la bedelo ra'iisul wasaaraha meesha laga saaro bal arrinta maxaa sababay bismillaahir rahmaanir rahiim wa salaatu wa salaamu ala rasuulillaah sallallahu alayhi wasallam wada arrintani waa arrin runtii taariikh bay leedahay waxaan ognahay iminka marka laga hadlayo taariikhda siyaasadda Soomaalida gaar ahaan taariikhda siyaasadda Soomaaliya dhowr iyo soddonkii sano u dambeeyay ilaa markii dawladda dhexe ee Soomaaliya ay meesha ka baxday waxay soo martay tadawur siyaasadeed isbedelaya mar dhamma bay jirinba oo dalku uu maartay u burbay laakiinse waqtigii laga bilaabay ilaa shirkii Carta ee Djibouti lagu qabtay dawladdii ugu horeysay la sameeyay ee la oran jiray TNG-da ama Transitional National Government la oran jiray taasi waxay ahayd halkii ugu horeysay markii isku dayo badan oo nabadeed oo dadaalo badan wadamo badan ay sameeyeen oo Itoobiya iyo Masar iyo wadamo badan kamid ahayd ay guul daraysteen oo ay adkaatay in Soomaaliya isku keeni kari waayay in nidaam loo wada sameyn kari waayay iyaguna kooxo waliba hubaysan ay kula fadhiyeen ayaa aakhirkii waxay ku guuleysay dalka Djibouti inuu isku keeno Soomaalida kala duwan iyagoo maartay afkaar kala duwan iyo mabaadi kala duwan iyo kooxaysi kala duwan la yimid marka shirkii Carta ee Djibouti wuxuu noqday halkii ugu horeysay ee nidaam siyaasi ah oo Soomaaliya loogu talagalay laga sameeyay Djibouti baa runtii arrinta maaragtay taariikhdeeda ay u galaysaa halka waxa lagu sameeyay marka waxa la oran jiray 4.5 Soomaalidii maadaama qabaayil ay ahayd qabaayilkii waxa loo qeybiyay 4 iyo badh kadibna kaasal waxa lagu saleeyay nidaamkii baarlamaanka ahaa ee maaragtay si xildhibaan loo qeybsanayay ee waliba qaab qabiiliya lagu qeybsanayay marka qaabkaasi wuxuu noqday qaab intii muddo badan oo ka dambeysay lagu soo guday jiray oo lagu shaqeynayay oo lagu dabaqay oo xildhibaanada sanad kasta lagu soo xulinayo madaxweynayaasha lagu dooranayo baarlamaan lagu dooranayay dadka inta badanna ay runtii dhaalisanaayeen halka markii ay ka timid ayaa waxyaabaha siyaasadda Soomaalida ay ka fariisan weyday salka u dhigi kar weyday waxa kamid ahaa nidaamka parliamentary system kale adduunka inta badan laba nidaam baa ka jira nidaamna waa nidaam baarlamaanku awood leeyahay marka baarlamaanka marka hore la doortaa isaga waxa uu doortaa maaragtay madaxweynuhu wuxuu soo doortaa ra'iisul wasaaraha madaxweynaha iyo ra'iisul wasaarena waxay leeyihiin awood siman oo ra'iisul wasaarina awood buu leeyahay oo marka xataa xilka laga qaadayo marka loo magacaabayna baarlamaanka lagu celinaya oo baarlamaanka baa aqbalaya oo aqliyada baarlamaanka waa inuu helaa dawladdiina isaga magacaabaya madaxweynihii soo magacaabay baa ayaa waxa ka awood badnaanay ra'iisul wasaarihi kadibna taladii ayaa qaybsamaysa taasi marka saameey maadaama sababta khilaafku soo noqonayo bayska iyo saldhigga ay ku fadhidaan waxa weeyaan maadaama bulshadii qabiil ahaan ay qaybsan yihiin oo dadkii aanay is aaminin oo nidaam siyaasadeed loo aaminsan yahay oo dadka ay codeynayaan aanu meesha ka samaysmin 4.5 kii lagu shaqeynayay Soomaaliya ay ku shaqeynaysan wali CDC yahay 4.5 kuna saldhigiisu qabiil yahay inta badan ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynuhuna ay ka soo kala jeedaan laba qabiil ka soo kala jeedaan oo kala interest duwan oo kala aragti duwan oo kala ma garanaysa duwan way adkaan jirtay mar kastaba in la isla helo
ra'iisul wasaare iyo madaxweyne wada socda waxaad arkaysaa dowladaha qaar Soomaaliya soo maray ra'iisul wasaare madaxweyne midna kala 4 sano fadhiyay iyo 3-4 ra'iisul wasaare bedelay ayaad arkaysaa taasina waxay saameynaysaa mid bedelaya way wada shaqeyn kari waayay hadda mid kale bedelaya way wada shaqeyn kadib dawladdu waqtigeeda wuxuu ku dhameysnaanaya dagaal ka dhaxeeya ra'iisul wasaaraha iyo ra'iisul wasaare iyo madaxweynaha taasi markaa si ummaddu ay isbedel siyaasadeed u samayso waxaad u baahan tahay nidaam siyaasadeed oo saldhigiisu adag yahay oo stable oo maaragtay degan ee u baahan tahay waxaan jeclahay markaa meel ay Soomaaliya ku fashilantay oo ay Jamhuuriyadda Somaliland ay maaragtay saxday in dadka u iftiimiyo 1993 markii dawladdii Cabdiraxmaan Tuur ee dalka gacanta ku qabatay xornimadii dalka keentay isbedelkii siyaasadeed ee dalka laga filayay inay ku guuleysatay oo iyadu maaragtay waqtiga SNM waxa ku jiray dastuurka SNM in marka haday SNM meesha qabsato in 2 sano ay xukunka hayso kadibna dawlad safiiliyaan ama dawlad rayida lagu wareejiyo markii waqtigii Cabdiraxmaan Tuur mucaarado badanna ku kacday laakiin si waqtigii markay ku eeg tahay ayaa 1993 waxa la sameeyay axdi qarameed axdi qarameedkaasi taariikhda Soomaaliland wuxuu kaga jiray baal dahab waa halkii lagu mideeyay kow aragtiyooyinkii siyaasadeed dalka kala duwanaa oo SNM ama dadkii kale ee reer Soomaaliland ee SNM ku jirinba aragtiyooyin ka duwan aragtidii SNM dalka la soo gashay bay jirtay oo siyaasadeed qaar baa aaminsanaa nidaamka imkaanu ka sheekeynay parliamentary systemka Allahu naxariisto cali khalifi ay kamid ahaayeen in la keeno dalka oo dalku madaxweyne ra'iisul wasaare iyo gudoomiye baarlamaan u yeesho halka inta badan dadkii u badnaa maaragtay intii kale reeraha kale ay aragti ka duwan ay qabeen kadib waxa la soo jeediyay wax la sameeyay guddi aqoon-yahan ah daraasad badan baa laga sameeyay akaademiyadu buug dhan baa ka qortay arrintaas see u dhacday guddi aqoon-yahan la sameeyay kadibna waxa la yidhi war maxaynu ka baranay taariikhdii Soomaalida tii mustacmarkii iyo mustacmarkii tii ka dambeysay iyo tii militariga ahayd maxaynu ka baranay waxaanu ka baranay in aan Soomaali dal Soomaaliyeed example oo kale ka Somaliland oo reer ahaan iyo dad ahaan iyo bulsho ahaan ba qaybsan oo qabaal u qaybsan inay adag tahay in awoodo siman la siiyo dawladda kadibna awoodahaas ay reerihi ku tartamaan laakiin waxa dal doonaya inuu dagaal ka soo kawdo doonaya inuu maaragtay siyaasado badan sameeyo isbedel badan dadka ka dhaliyo doonaya inuu dadkii hubka dhigista ku sameeyo doonaya inuu dadkii mucaaradka ka soo horjeeday hubaysnaa inuu iyagana maaragtay la diilgarayo waxay u baahan tahay oo nidaamka shaqada qaban karaya madaxweyne awood oo aan kursigii deecidi kula fadhiyin oo aan reerihii kale ee ka soo horjeeday haday kursiga kula fadhiyaan oo ra'iisul wasaarihii uu isaguna reer kale ka soo jeedo madaxweyne reer kale ka soo jeedo kadibna labadaas ay inta badan ay focus ku dagaalku ka dhaxeeyo way adagtay soo horumar waantii Soomaaliya ku dhacday 1993 ayaa Soomaaliland markaa go'aansatay in nidaamka parliamentary systemku maadaama la eegayo waqti xaadirka dalku wuxuu u baahnaa inaan meesha laga saaro kadibna nidaam madaxtooyo nidaamka ama presidential systemka nimanka oo awoodda madaxweynuhu leeyahay awood yarna la siinay madaxweyne ku xigeenka ayaa markaa la keenay taasina waa tii in ayaga lagu doortay haddana axdi qarameedkii markuu dhamaaday ee dastuurka Jamhuuriyadda Somaliland la sameeyeen waa tii dastuurka lagu saleeyay ee madaxweynihii markaa awood la siiyay awooddaasina waa tii u saamaxday madaxweynayaashii kala duwanaa in 5 sano waqtiga haya in aadliisi dalku wixii ay qaban kareen dawladda ha qabatay laakiin siyaasiyan dalku inaanay dawladda dhexdeedu inaanay yadu cadow isku noqon imika koonfurta ka dhacday Soomaaliya ee dalka Soomaaliya ka dhacday waxa weeyaan dawlad yada cadow isku ah iyo dawladdii dhexdeedii lagu tartamayo iyo afkaar aan marnaba heshiis noqon karin oo dawladdii ay ahayd in afkaarta iyadu meel mariso ilaa hadii laba ray isku yimaadaan laba ray waa mid la marabaya oo mid waa inuu meesha ka baxaa midna uu socda cidii socodsiin lahayd ayaa iska soo horjeeda awoodi baa qaybsan taasina waa ta ku kaliftay maartay waqti badan kadib 32 sano kadib inay fahmaan inaan nidaamka parliamentary systemka nidaamka baarlamaanka ee awoodda madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha loo qaybiyay inaan marnaba shaqeynay waana taa maanta ay u yimaadeen xaqiiqda maartay inay tahay hadaba waxay ka barteen Somaliland runtii inagu waxaanu sameeynay isbedelka siyaasadeed dalka dhacay oo ugu horeyso hubka dhigista ugu horeyso dib u heshiisiintii dadka ee reer Somaliland aad bay soo kala horjeedeen lagu heshiisiyay dastuurku waa shayga ugu weyn wuxuu ahaa muddo badan ha qaato tacab badan ha la geliyo waqti badan ha la geliyo laakiin dastuurku waa document yaro kooban
laakiin se waa documentiga masiiriga ummad dhan oo 5 milyan ah go'aaminaysa say u noolaanayso ilaa siyaasaddu waa hab nololeedkii moogto siyaasaddu inuu si kale u naqaan laakiin siyaasaddu waa hab nololeedkii 5 milyan si loo maamuli lahaa documentiga yar baa ka hadlaya waa xaween buugan yar ee dastuurka aynu bixinay ayaa ka hadlaya buuga inay 100,000 oo aaraadood oo kala duwan oo afkaar ah iyo interests siyaasadeed oo aan islahayn oo la isqabasiin karin in lagu mideeyo waa adagta waliba waxay ka sii adagtay haddaad haysato nidaam parliamentary oo lagu kala aragti duwan yahay in la soo saaro waa sababta dastuurka Soomaaliya marnaba loo hasixin kar lahay imka dastuurkoodu waa professional waa kumilgaad ba kama baxo muddo dheer ha ilaa burburkii xigta ha inagu waxaynu ku guuleysanay dastuurkii inaynu dastuur samaysano oo waliba dastuurkii la sameeyay baarlamaankeeni waa aqbalo waliba baarlamaanku wuxuu ahaa baarlamaan ay rag iyo maarad inta badan rag baa hayeen raggii waqtiga aynu oran karaynay way ugu aqoonta iyo caqliga iyo garashada badnaa haddii dhaqan noqoto iyo haddii diin noqoto iyo haddii siyaasad noqotoba dalka waqtigaas la soo xulay oo waxay bilaamaysaa marka 98 99 2000 ilaa intii dastuurka loo maartay loo oo xataa dibadda aynu ka keenay cid inaga caawisa farsamo ahaan sida dastuurada dunida loo qoro nin Suudaan iyo runtii kala shaqeeyay si farsamo ahaan loo qori lahaa haddii aan madaxweyne awood leh oo mandate awood u leh oo isagu awoodda keligii iska leh keligii ma yeelan karo baarlamaan baa jooga dalkii laakiin se isagu awood u yeelan karay inuu ajandihii siyaasadeed dejistay uu meel marin karay haddaan u jirin ha dastuurka muu samaysan waxay nagu dhici lahaayeen taas Soomaaliya imka haysta haddii parliamentary system ahaan lahaa marka Soomaaliland waxay ka macaashtay inay dib u heshiisiintii samaysay inay hubka dhigay samaysay inay dastuur samaysay inay doorashooyin samaysay inay isbedel dhaqaale dalkii ay ka samaysay taasna waxa saamaxad marka faa'iidada uu leeyahay nidaamka madaxtooyadu waa faa'iidooyinkaas faraha badan loo leeyahay waliba imka marka eegto xaaladda Soomaaliya ay ku jirto oo adeegto inuu yahay dal ka soo kabanaya maaragtay dagaal ka soo kabanaya bulshadiisa wali ay qaybsan tahay qabaayil loo kala fadhiyo nidaamkiisa siyaasadeed uu wali ku salaysan yahay 4.5 iyo nidaam qabiiliya waxaan u arkayaa in xal u noqon doonto khilaafka badan ee inta badan siyaasiyiinta Soomaalida haysata ee Soomaaliya in xal u noqon doonto inay nidaamka madaxtooyada ah inay qaataan waa waqti way soo daahday laakiin se waxaan u arkayaa inay tahay inay runtii wax badan ka qaban karto madaxweynuhu 5 sano markii hore 4 sano ka dhigeen 5 sano ka dhigeen madaxweynuhu 5 sano uu joogo ajandaha uu la yimaado uu fulin karayo laakiin se ajandihii uu la yimaaday haddii kii ra'iisul wasaaraha ay agtiisa fadhiyay caqabad ku noqdo وأجنديه كسوتشي والدولة واحد لون شري وإنمي ودين واحد لون شري والسيستم يسقي سكو عدوه هذاك مرة نظام يسقي سكو عدوه ويسقي سوق الهرش يسقي سلف ديستركت بالله هايو يسقي بس برون يوس دومينية سيبو مركا ومضي حل ممكن ليه سيبو طلقي وقع حرين كريا مثل لو كيعدوا مارتي قلوبهم كمعارض كي كسور شيء يكو أرجع حسدا يكو وكلا ياركتوين كبينيس خلاصاً iyo maartay reeraha aragtiyooyinkoodu ay aad ku fog tahay seeba loo mideyn karaya haddii madaxweynihii aanu golihiisa wasiirada aanu ajandihiisa marin karin inta badan dastuurka ama nidaamka ay dawladdu ku dhaqmaan marka laga guurayo mid kale loo guurayo waxa la yiraahdaa cid baa ay soo xigtaan yey Soomaaliya marka systemkan ay wadaan yalla oran anu walaal waxaan u arkayaa in siyaasadda Soomaalidu ay runtii ikhtiraacaydu Soomaaliland ka bilaabay maadaama burburkii kadib dhowr 9 Soomaaliland wixii 2 sano ka hor inagu aynu dhisnay iyo nidaamkiina waanu sameeyeen ku guuleysanay ee dalkana dib loogu soo dabaalay xasilooni iyo maaragtay iyo horumar siyaasadeed loogu soo dabaalay ayay maanta marayaan 6 sano kadib ayaa qayb kamid ah Soomaaliya markii ugu horeysay gobolada Puntland ay doorasho ka dhacday وكو دايشو xeerarka ay inta badan waxay ka soo deynsadaan ay ka soo amaahdaan oo inta badan laga soo deegtaa Soomaaliland xisbiyada imika Puntland lagu tartamay oo 3 xisbi Soomaaliland ba laga soo qaatay hata magacyada isku aad bayn isugu eegnahay oo waxaad ku arkaysaa mideeye iyo kaah iyo halkana way ka jiraan waradeena qaar kamid ah halkana way ka jiraan waxaad arkaysaa nidaamka doorasho qaabka golaha deegaanka iyo soo bixitaanka warada loo mideeyay oo qaabkiina waa inuu mideynay 2012 iyo 2022 markii ugu horeysay qabanay golayaasha deegaanka saddexdii xisbiye ugu horeeyay ay soo baxeen maaragtay udub iyo kulmiye iyo ucid ay soo baxeen haddana nidaamka doorasho waxaanu sameynaa hadda 2012 laakiin se imika 2023 waynu ka guurin oo nidaam xisbiyadii toos loo dooranayo ayaa runtii ayaa lagu tala jiraa in la sameeyo marka wada arkaysa isbedel tatawuri
marka anigu waxaan oran karaa ikhtiraca siyaasadda Soomaalida waxa laga soo dhigtay maaragtay tajribaadkii siyaasadeed ee faraha badnaa ee Soomaaliland maalin ay ku fiisay maalin ay ka caysay ee ay ka samaysay moogtay ilaa 1993 ilaa 1997 iyo markii dambe dastuurkaba marka taasi waa taa haddaad eegto xagga waqtiga inaga dastuurkeena wuxuu dhigay madaxweynuhu 5 sano iyaga kooda ku meel gaarka wuxuu dhigay 4 sano 5 sano ku soo noqday because 4 sano marna campaign baad ku jirtaa oo doorashada baad heshay marna marka doorashada labada sano ugu horreyn baad qaban kartaa labada sano dambe campaign kala galaysa marka qofkii madaxtooyada joogay madaxweynihii marna dawladdiisa la dagaalamaya oo dagaal kula jira oo prime ministerkii isaga ay haysta iyo baarlamankii oo baarlamankiina maaragtay awood buu ku leeyahay golihii wasiirada oo hadii golaha wasiirada xubnaha baarlamanku iska waaya waa dagaal kale oo way qalibaya oo codkii kalsoonida ay u qaadayaan taa inagu ma lihin inagu xubinta baarlamaan hadii wasiir noqonaysa uu iscasilayay laakiin iyagu xubinta baarlamaan isagoo baarlamaan hadii wasiir noqonaya oo baarlamankii baa wasiiradii ay ku jirayaan marka golihii wasiirada waxa laga leeyahay baarlamankii laga leeyahay marka baarlamanka hadii aan heshiis kula ahayn waxa weeyaan golihii wasiirada ka tuurayaan ra'iisul wasaare bay tuurayaan ilaa adiga aakhirka marka nidaamkii siyaasiga ahaa stable ahayn macnaheedu waa nidaam dunida ka jira laakiin inta badan waxa isticmaalaa dunida dimuqraadiyadda imka Ingiriiska oo kale dunida dimuqraadiyadda ay 1500 sano ka jirtay ayaa ay isticmaalaya moogto ma isticmaali karaan dad already dagaal ku dhex jiro oo iyaga qaybsan ma isticmaali karaan marka tii 5 sano 4 sano 5 sano ka dhigan waxa kamid ah nidaamka kale ee la yiraahdo proportional representative system oo ah qaabka inagu doorashada aynu dhignay imka xeerarka doorashooyinku waxay dhigayaan in marka xildhibaanka la dooranayo waxa qofku wuxuu codeeyaa xildhibaanka campaign gala xildhibaanka codka la siiya xildhibaankaasi xisbigu ka sharaxan yahay xisbigi codad buu helayaa codadka uu helay xisbigi iyo xisbigi kale codadka ay heleen xisbi kasta codku helay ayaa waxa loo qaybinayaa waxa odhanaya xisbigan wuxuu haystaa mid loo kale 40,000 kan wuxuu helay 100,000 kaas wuxuu helay 100,000 kadib waxa odhanaya imsa kursi baa yaala kadib waxa odhanaya waxa yaala 20 kursi Maroodijeex oo kale gobolka Maroodijeex 20 kursi kadib waxa la soo saaraya qiimaha kursiga uu ku fadhiyo marka waxa odhanaya kursigaas wuxuu ku fadhiyaa kursiga gobolka Maroodijeex wuxuu ku fadhiyaa 5,000 cod ama 7,000 cod qiimihiisu kadib waxa odhanaya xisbi hebel imsa cod buu helay 100,000 boqolkii ku balaadanaya 7,000 way kursiga Soomaha imsa kursi buu helay marka saarnay 8 kursi kadib 8 kursi ee uu helay ayaa waxa odhanaya liiskii musharaxiintiisa 8 ugu codka badnaa ayaa marka baxaya nidaamka waxa marka proportional representative system laakiin se waa open waa isagoo furan open list system baa marka waa isagoo furan waa nidaamka habka liistada furan baa waxa jira nidaamka habka liistada xidhan oo iyagu imka ay qaateen Soomaaliya qaatay oo ah in xisbiga loo codeeyo waa sidii inagu markaanu qaadin 2002 doorashadii aanu galnay ee golaha deegaanka ay ku dooranay waxay ahayd nidaamka habka liistada xidhan marka dadku waxay u codeynayeen xisbiga liis buu xisbigu lahaa liiska dadka isaga soo qoranay musharaxiintiisa isaga keenayay isaga soo qoranay marka liiska markuu soo qorto liiska uu sameesto number 1 ka iyo 2 ga iyo 3 ga iyo 4 ka iyo 5 ka isaga xisbigu dhiganayay oo sameeysanayay markuu saa xisbigu sameesto dadku u codeynayeen xisbigu inta kursi uu helay 1kiisa iyo 2kiisa la qaadanayay marka dadku xisbiga u codeynayeen halka imka shakhsigii loo codeeyay marka nidaamka liistada xidhan ay iyagu Puntland ba iyaduna runtii keentay marka waxaan oran karayaa Somaliland 32 sano ay jirtay Soomaalida kale waxay bartay habdhaqanka siyaasadeed ee la falgali karaya nidaamka qabiilka ah ee aan ku salaysana ay bartay runtii oo inta badan daraasado badan la sameeyo oo qaar kamid ah akademiyada ay sameysay wadamada Afrikaanku nidaamkoodu wuxuu isku jiraa nidaam la yiraahdo ka formalka ah ama kan de laynoo soo waariday reer galbeedku inay bareen mustacmarkii la socday iyo keenii dhaqanka ku salaysnaa marka labadii baa la isqabasiyayo hybrid baa marka waa la isku suraa oo labadii baa isku suran midna informal system baa midna formal system baa labadii baa la isku suraa marka labada marka la isku daraan hybrid baa marka labadaasi de meelana way iska waafaqayaan meelana iska ma waafaqayaan marka inagu waxaan ku guuleysanay waqtiyada faraha badan leh inaynu maaragtay la tacaalno oo maalinba la daala dhacno laakiin sidee aynu nidaamkii uu inoo shaqeeyo oo bulshadii maaragtay ay wada laftooda inay sugnaadaan soo caqabada iyadana ma muddo qaadanaysa inay kala baxaan because dhexdooda dagaal baa ka taagan aan invisible la arki karin stakeholders oo de maaragtay state institutions ama hay'adaha dawladda qaabka u shaqeeya de qaabkii loogu talagalay maaha midda loo kale qaab qabiiliya lagu soo xulanaya qaab qabiiliya loo sameynaya dadka lagu qaadan maayo aqoontiisii weerarta dadka lagu qaadanaya wasiiradii qabiil ahaanba loo balance gareynaya
lama eegayo wasiirka maaliyaddu ma haystaa PhD ama masters ma ku haystaa finance lama oranayo mid xoolaha bartay ama mid wax baran baa la geenaya oo nidaamkii qabiiliga ah marka waxaan oran karayaa 90% systemka dalka ka shaqeeya waa ka basekiisu reeraha yahay 10% baa structure-kan iyo nidaamkan runtii aad baan arrintaa u dareysnay oo sidii arrinta looga baxay laakiin muddo qaadanaysa in dhaqaalaha dalku haduu isbedelo bulshada dadku ay isbedelaan in maaragtay si tartiib ah looga baxay laakiin se wax badan oo Soomaaliland ay ku guuleysatay ee Soomaalida kale way ka baratay inaguna dalal kale inuu maalinta ka sidameysa laakiin se waxa aan ku soo gabagabeynayaan aan dadweynaha la wadaagaya in nidaamka siyaasadeed Soomaaliland uu yahay mid iyadu ay curisay oo marka ay eegto taariikhda siyaasadeed Soomaaliland ilaa laga soo bilaabo waqtiyadii mustacmarka ilaa kuwii ka dambeeyay nidaamkan muu ahayn nidaam inta badan inta la keeno la yiraahdo san yeela Soomaaliland waxay ku shaqeynaysay wala keenay maalinba system baa la keenayo la ku shaqeeyo meel shaqeynay marka maanta meel bay keeneen laftiisa wadama laga soo dheeganaya sida maanta mid bay keeneen iyagu ay leeyihiin iyagu ay runtii ay xaquuq ku kala aragtidu weyn dad badan ka soo horjeeda jira sax way Puntland kamid tahay laakiin se waxa waaqiciya in wax iyagu ay ka yimideen waxan yihiin aakhirkan waxa noqon doonta su'aasha dambe ee aan ku soo khatimayo waxa weey nidaamka federalismka Soomaaliya wax iska weydiin doona ومن أركي أنا ونظام قاسم نظام سعودية أو شقينية إنه المستقبل كان نقطنية لكن سواحد من واحد كلا بحية مركز دل كاسي ودي الجرو دورشو. قاب كان سوماليا مكا دجالات شراء باله با يجون سايستا فدرال باشر سات شكتي إن الفلية نظام كان مكا قرشية عقبة ظهرية لو قدام والله يطلع عقبة ده بدن بقى رمانية أنتي ماشى كشرت هشيس بيكوتر laakiin se waa in laga dhaadhiciyaa siyaasiyiin fara badan oo ka soo horjeeday oo maaragtay sheegay inaan nidaamkaasi nidaam la wada leeyahay oo aanu hayn baa jira reer Muqdisho iyo dadka kaleba maamul goboleedyada ka soo horjeeday Puntland baa kamid ah ayaa kow ka ah iyaduna caqabad ah oo maaragtay u aragtay nidaamka federaaliguna inuu iyaga u danaynayo oo nidaam inta badan u danaynayo oo dantooda u arkay iyaguna markii hore ay bilaabeen marka su'aashu waxay imanaysaa intay waxaan ay golahan uu soo saaray in sidoo soo saartay ma noqon doona wax inta dastuurkii la bedelo qodobadii dastuurka dib loo eego because waxay u baahan yihiin oo dawladda Xasan Sheekh ay ka jirtaan ay doonaysaa in dastuurkii soo saarto dastuurkana caqabada ugu weyn ee la isku haystay kow ka waxay ahayd dalka Soomaaliya seebu dastuur yeelanaya iyadoo Jamhuuriyadda Soomaaliland ka maqantay una arkay iyaguna Soomaaliland waa arkayaan qayb kamid ah Soomaaliya taas caqabad ugu weyn marka waa in ay beejka Soomaaliland iska xidhaan kadibna dastuur ay leeyihiin iyagu ay sameeyaan kadib dastuurkaasi nidaamkan imka ay dhigeen ay ku saleeyaan wuxuu noqon karaa mid federaaliya wuxuu noqon karaa mid aan federaali ahayn laakiin dastuurka ay ku saleeyaan kadibna nidaamkaasi uu maaragtay uu hor u socdo laakiin se waa in forceska ama awoodaha siyaasadeed iska soo horjeeday meesha ku loolamaya waa in mid kamid ah guuleysta haddaanu mid kamid ah aanu guuleysan oo aanu winner noqon oo aanu ajandihi intuu qaaday isagu aanu markaa marsiin oo aanu socodsiin ma shaqeynayo marka waa in ajandahaasi uu noqdo ajande cid wadato waa inuu noqdo ajandahaasi forceska ka soo horjeeda la mariyaa waa in meel markaa ay runtii ay u socotaa Dr. Maxamed Faarax gudoomiyaha Akademiyadda Nabadda iyo Horumarinta Somaliland oo ka faalooda siyaasadda geeska kana wareysanay nidaamka Soomaaliya cusub ee hadda la wado inkii hore lagu bedelo aniga Cali Fahad ayaa barnaamijkeedina socodsiinaya kulanti dambe oo xiiso leh